Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada qaybteennii koowaad ee barashada MVC framework. Haddaba waa maxay MVC framework? MVC framework marka aynu ka hadlayno waxaan leenahay MVC frameworku waa architecture pattern ama waa qaab dhismeedka loo isticmaalo in lagu dhiso web applicationska. Haddaad doonayso inaad software dhisto web application waxaad isticmaali kartaa MVC. haddaba saddexdan eray MVC muxuu taagan yahay? M waxay u taagan tahay model, F waxay u taagan tahay view, C waxay u taagan tahay controller. kuwaasoo inaga caawiya inaynu kala saarno kow modelka oo inoo qabanaya shaqada daatada iyo business logica. sidoo kalena view wuxuu inoo qabanayaa dhinacii interfacekii shaashadii aynu wax ka soo gelinaynay, iyo controllerka shaqadiisu ay tahay inuu isagu inoo qabto codsiyada ka imanaya userku markuu xog soo geliyo ama uu wax searching gareeyo ama login oo kale uu sameeyo, codsigiisu waxa uu tegayaa controllerka, kadibna controllerka wuxuu gudbinayaa modelka wuxuu access garayn doonaa daatadii. marka xogtii laga soo jawaabo kadib wuxuu u gudbin doonaa viewga, sidaasaana customerka loogu soo bandhigayaa xogtii. haddaba maxaa loo isticmaalaa MVC-ga? way aynu uga dooranaynaa inaynu frameworkyadii kale iyo noocyadii kale iyo inaynu isticmaalno. kow MVC-gu wuxuu inoo habeeyaa koodhka qaabka ama qaabka koodhkeenna ayuu inoo qaabaynayaayo qaab structured oo hab isku toostoosan buu inooga dhigayaa. laba aad bay u fudud tahay marka la maintain garaynayo la hagaajinayo ama waxyaalo kale lagu soo darayo. sidoo kale waxa uu isagu dhiiri geliyaa ama inta badan in koodhkaaga dib u isticmaali karayso. masalan data accesskaaga hadduu meel ku yaallo ood mobile hadhow develop garayso ama desktop application, koodhkaaga dib aad u qaadan karta, yacni dib aad u isticmaali karayso. uma baahna inaad midhba meel ka soo qaato, waayo marka hore separate kala ahaa. sidoo kale wuxuu inoo kala saarayaa saddexda shay ah daatadii iyo user interfacekii iyo logicii. inaynu markaa tijaabino oo aynu ka shaqaysiinaana way fududahay. markaa shantaa qodob ayaynu odhan karaynaa waa sababaha loo doorto in la isticmaalo MVC-ga. haddaba tusaalayaal baynu usoo qaadanayna MVC-ga marka programming la samaynayo kuyaga loo isticmaalo. waxaa ka mid ah hadda kan inagu aynu baranno ah ASP.NET MVC, waxaanu ku isticmaalnaa luuqadda C# oo ay samayso shirkadda Microsoft. waxaa jira mid la ydhaha isagana Spring MVC oo lagu dhiso Javada, mid lagu dhifo Laravel PHP-ga, waxaa jira mid isagana la isticmaalo Ruby-ga, waxaa jira Django oo Python-ka isna wuxuu leeyahay MVC ama aad baa buu ugu dhow yahay MVC-ga. waxaad ii xoran karnaa isna waa MVC. kuwa iyo kuwa kaloo ka badanba waxaa lagu dhisaa MVC-ga. haddaba tusaale ahaan qaabka uu shaqeeyo marka uu userku codsi soo dirto, masalan login formkii iyo passwordkii buu geliyey, dabadeedna wuxuu usoo diray URL-ka student index. marka uu codsiga diro codsigiisu waxa uu gaaraya controllerki. controllerku markuu codsigan receive gareeyo wuxuu u gudbiyaa modelka. codsigaaga markuu modelka u gudbiyo kadib haddana controllerka wuxuu dib usoo baas gareeyaa ama yacni requestkii uu u gudbiyo modelka, jawaabtii kasoo noqotay xogteedii wuxuu u gudbiyaa dhinaca viewga. sidaasaanu uu ku arkaa markaa userku. kadibna viewgu wuxuu display gareeyaa daatadii as HTML ahaan, iyadoo HTML ayuu soo view garaya. haddaba coursekeenu in practically siduu u shaqeeya, tusaale ahaan haddaad modelka samaynayso marka hore waxa ka samaynaynu samayno class baynu abuuren. tusaale ahaan waxaynu nidhi public class, magac baynu bixinay student, dabadeedna waxaynu furanay curly bracketkii. classka dhexdiisii ayaa waxaynu ku qoraynaa markaa model waxa loo yaqaano property. model classkeena dhexdiisa waxaynu ku qoranaa la ydhaha class property. class property-gu waa sidii variable-ka oo kale oo uu classku leeyahay, kaasoo loo isticmaalayo in data lagu kaydiyo. property-gu markaa class property-gu waa sidii variable oo kale oo loo isticmaalayo in xog lagu kaydiyo. masalan waxaad qortay public waa access modifier, wuxuu sheegayaa in maxaa la ydhaha variable-kan ama property-kan aynu qorray meel walba laga access garayn karaayo. sidaa awgeed markaad variable-kaaga qorto waxaad qoraysaa data type-kii, deedna variable name-kii, kadibna waxaad sheegaysaa fediyaset in variable-kii loo isticmaali karayo in xogna lagu soo aqriyo isla markaana lagu kaydin karo. markaynu intaa qorno sidoo kale waxaynu u baahanay inaynu abuurno
controllerki marka controllerka la abuuray isna waa sidii classka oo kale public class dabeedna class la yidhaha controller magacaad u bixisay waa student dabadeedna controllerka isagaa inta dambe raacinaya kadib waxaan ku dhex samaynaynaa waxa la yidhaahdo method oo la yidhaha action result method marka waxaan qoranaa isagana access modifierkiisi public action result deedna magac baynu u bixinaynaa anyname ayaad u bixin karaysa intaa markaynu samayno functionkani wuxuu ku return garaya ama xogta uu kusoo bandhigaa dhinaca viewga dabadeetana dhexdiisa waxaynu uga yeedhaynaynu ku abuuraynaa insti baynu ku samaynaynaa inagoo qorayna markaa inaynu u yeedhanno maxaa la yidhaahdaa classkii aynu kusoo dhex abuurnay modelkeeni deedna classkeenu waxa uu inoo wada propertyo lahaa tusaalaha waxaan soo qaadanay classkeenii la odhanayay student propertyada ku jira waxa kamid ah id oo aynu number one odhanayno name oo magac tusaalahaan cali oo kale aynu ku save garaynayno age oo kale aynu odhano waa 20 ku labaad baad soo qaatay ku saddexaad marka uu qaabka marka daatada kuugu hayso waxa la odhanayaa waa objectgeena magaciisu waa students baa la yidhaha students waxaanaynu kusoo akrinay as a list ahaan marka hal mar baan iskugu wada akrinay tusaalahan oo kale qaabkaas kale marka loo sameeyo waxaa la yimaadaa qaabka xagga waxa la imanaya iyagana viewga ka viewga markaad samaynayso isagana waxaa muhiima in hadhow baynu arki practically casharada maan ku arki doonaa inaad taqaano in la isticmaalayo marka aad model wax kusoo akhriyayso qaabka modelka loogu yeero marka habkani waa c sharptii aynu ku qorayno xaggana waa htmlkii oo viewga waa inaga nidhi xogta wax kusoo bandhiga ase html ahaan marka haddaynu hadda table samayno tableka waxa uu leeyahay table rowgaas markaa header baa loo sameeyey marka headka koowaad ciwaankii koowaad id iyo namekii iyo agekii waa inagii magac kusoo qorqoranay markii one halkan cali nidhi agekana 20ka nidhi taasoo kale marka la akhriyayo waa in lasoo luub karaya waayo aynu u luub karaynaynaa shayga sababta aynu luubinka ugu samaynaynaa waxa weeyaan kol haddii xogtu fara badan tahay oo lasoo akhriyayo xog badan in markood layka koowaad la akhriyo haddana la celiyo ka labaad ka saddexaad marka casharadaasoo faahfaahsanna waxaa lagu dhigtaa programmingka c sharpta marka qaabkan ayaa laga soo bandhigaa valuegi intaas waa habka loo sameeyo mvc-ga haddaba sidee baynu applicationkii u samayn karaynaa mvc maxaa layga baahan yahay si aad u samayso mvc marka hore computerkaaga uu kugu jiraa visual studio iyo sidoo kale sql server kadibna waynu soo kicinaa visual studioheeni kadib waxaynu dooran doonaa halkay ku taala create new project markaad tiraahdo create new project waxaad halka ka dooran doontaa programming language-kaa doonaysay waa inagaynu c sharp ka shaqaynayno platformkana windows sidoo kalena program typekeena waxaynu dooran doonaa web kadib waxaynu deydegi doonaa inaynu isticmaalo asp.net web application .net framework markaad halkaasaa uga searchin garayso uu magacaasi kuu soo baxo asp.net web application .net framework ayaa dooranaysa haddii aad kan weydo sidee baad ugu soo daraysaa haddaad kan weydo waxaad marka hore tegaysaa installerkaaga markaad installerka tagto waxaad ku dhufan doontaa modify markaad ku dhufato waxaa kuu soo bixi bagekan oo kale markaa kan hadduu kuu saaran tahay laakiin aad frameworka weydo xagganaad tegaysaa waxaad ku soo daraysaa markaa extensioniskan ay ku taalo framework meel kastoo framework ay ku taalo ayaad kusoo daraysaa sida .net framework 4.6 .net framework 4.8 markaa .net frameworkyadan ayaad kusoo wada daraysaa markaad .net frameworkyada kusoo darto kadib waxaad oran doontaa modify dabadeedna wuu kuugu shubi doonaa marka aniga hadda dhawow igu jiraa oo waa kanaynu ka isticmaalayna markaan dabadeedna halkanaan kusoo noqonayaa kadib waan ka baadhaya halkan uu soo dhigaya markaan arkan helo waxaan dooranayaa neges dabeedna projectkaygii ayaan magac u bixinayaa tusaale ahaan aan idhaahdo introduction to mvc halkan waxaa ku yaala dhowr option kow kan wuxuu inoo sheegaa marka aad ku dhufato browserkan wuxuu kuu sheegaya halkan browse markaad tiraahdo wuxuu ku keenaya halkan projectkaaga aad dhiganayso sidoo kale kan waa namespaceku isaguna waxaa lagu isticmaali karaa dhowr project oo kala duwan
kan saddexaad wuxuu inoo sheegayaa frameworkyadii waxaan noogu isticmaali doonaa framework 4.7 iyo wixii ka sarreeya ilaa 4.8.1 ka intaa kolba kii aad doonto ayaad dooran doontaa marka haddaad iskaga dayso ka recommendation oo ku shaqeynaya haddaad doonaysana 4.8.1 ayaad dooran kartaa kadib waxaan leenahay create hadda wuxuu leeyahay projectkeenan hore ayuu jiray waxaan raacin doonaa introduction to MVC demo waxaan leenahay frameworkena 4.8 waxaan leenahay create waxay noo soo bixi doonaa shaashadan haddii aad doorato empty oo aanad xaggan waxba ka dooran hadhow waxaad ku khasban tahay inaad faylashaada adigu create garaysato haddaynu doonno web frameworkana waxaan isticmaali doonaa ASP.NET oo isaguna ah web form isaguna ah inagu laakiin kaynu u soconaa waa MVC marka haddaad empty doorato waa inaad tirahdaa MVC dabeedna uu kuu samaynaya lakiin wuxuu kaa reebi doonaa templateeskii sida bootstrapkii iyo javascriptkii iyo jqueryadii iyo wixii kusoo raacin lahayo dhan uu kaa reebaya haddaad laakiin doorato kan MVC wuxuu kugu soo dhigayaa markaba automatically wuxuu kugu dooranaya MVC-gii iyo dhammaan wixii packages kula socday oo dhan ayuu kuu soo raacinaya sidoo kale waxaad dooran kartaa web API haddaad dhisayso API saasa markaa pageka aad rabto aad ugu dooran karaysa kadib waxaan leenahay create marka aynu inagu MVC doorano aynu create projectkeenii ayaa sare markastan projectkeenu u abuurmo waxaynu imanaynaa qaybta bidixda haddii aan ka qaado halka outside ay ku taalo wuxuu tegayaa projectkaygii xagga waa propertyadii xaggan waa solution explorerkii xaggana waa githubkii xaggana waa class viewgii marka inagu waxaanu dooranaynaa labadayna aadka u isticmaali doono wuxuu noqon doona solution explorerka iyo propertyada haddaynu u baahno marka solution explorerka marka aad doorato haddaad doonayso in mar walba halka kuu taagnaado waxaad ku dhufanaysaa isha halkaa yara ku taalo outside dabadeedna sanuu kuu noqonaya waanad weyneyn kartaa waanad iska yarayn karaysaa haddaba maxay kala yihiin kuwani kow folderka koowaad aynu soo qaadanayna MVC mar haddaynu nidhi mt waxay u taagneed model waa folderkan waana ka aynu ku ururin doono kalaasyada inooga shaqeynaya daatada iyo logicska waxaa la wixii business logica sidoo kalena controllerka waxaynu ku ururinaa isagana waa halkaynu ka shaqaysiinayno inaynu user request handlingka aynu ka samaynayno oo marka isagana aynu ka abuuri doono controller classkeeni sidoo kalena viewga waxaa inoo iman doonaa maxaa la yidhahdaa faylasha xagga viewga waxaa la wixii view aynu samaysano marka ka sambalkaynu qaadanay marka hore waxaa automatically iska sii samaysan controller loo yaqaano home haddaan kan furo waxaa ku samaysan markaa sambaleskii sida masadiska indagaskii aboodkii iyo controllerkii haddaan raangareeyana dhammaantood waa ku viewdooda halkan ay kasoo kacayaan oo aboodkii iyo contactkii iyo indexkii folderka contact waxaa inoogu jira isaga dhammaan wixii bootstrap ahaa ee aynu layoutka u isticmaalaynay waxaa kaloo jira kan script oo isagana inoogu jiraan jqueryadii iyo javascript iyo wixii aynu u baahnayn oo dhan ayaa isagana halkan inoogu jira oo coin line templateska waa laynoo soo raacinaya folderkeena viewga folder labaad baa ku jira oo loo yaqaano isagana shared marka sharedku wuxuu qabtaa isagu layoutka oo ah hadhow toole haddii aynu doonno design leena inaynu soo gashano ama admin templates waa halka aynu kaga soo darayno halkana waa errorskii iyo view startskii kuwana iyagana insha allah waan kala sharxi doona waxaa kaloo jira isagana file loo yaqaano web.config oo muhiima faylkani wuxuu qabtaa isagu hadhow connectioniska iyo marka aad doonayso inaad user authorizationka inaynu ka samayno waxaasoo dhan oo halka laga sadgareeyo isaga waxaa jira isagana folder loo yaqaano global.aspx kan isagu waa ka runtimeka ama command line interfacekeena CLI-ga waa ka isagu inoo soo kicinayo faylasha maxaa la yidhaha classeska iyagu raangareeya waxaa ka mid a kan loo yaqaano root configure oo isagoo ah halka aynu ka samaynayno mappingkeena markaynu projectka raangarayno yacni viewgeba igu soo horkacaya ma login formka ugu soo horeynaya ma dashboardka u soo horeynaya faylka aad doonayso iyo classka controllerka aad rabto waa halka laga sadgareeyo tusaale ahaan doonayso inaad samayso waxaan ku dhufanaa right click dan waxaad ku dhufataa go to definition dan waxaa ku furmaya classkan waxaa loo yaqaanaa root config waxaa inoogu jira baynu root mappingkii
inaynu ku maab garayno marka muxuu inoo maab garaynayaa projectgeena xagga urlka sare marka uu soo kaco controllerka usoo horeynaya magaciisa hadda waxaa inoogu jira home oo default ahaan home ba iskaga jira laakiin haddaad doonayso waad bedeli karta kaad rabto ayaad ka dhiganaysaa controllerkaaga controllerka gudihiisa marka la galana waxaa ku jira masaris badan oo kala duwan tusaale ahaan index baa ku jiray about baa inoogu jiray contact baa ku jiray ka aad rabto ayaa project markay soo raan garaynaba inoogu soo horkacaya ka saddexaad waa parameterkii id baa la yidhaahdaa waana optional parameter haddii aynu projectgeena kicinno oo marka aynu parameter qornana wuu inoo akhriyay haddii aynu uga yeedno xagga masalka haddaad ka tagtana kuma khasbayo oo wax error ma soo raan garaynayo sidoo kale urlka markaynu qorayno inoogama baahna inaynu qorno parameterka magaciisa nahna id equal deedna valuegaanu raacin intaa markaaynu samayno insha allah cashirkeena labaad ama videogeena labaad waxaynu ku arki doonaa inaynu habka loo abuuro controllerka ee wax loogu qoro habka masarka loo abuuro ee wax loogu qoro iyo habka viewga loo abuuro ee wax loogu dhex qoro intaba